بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. intaa kadib anigu ayaan lacabdi cawaale. barnaamijka maanta hogga tusaaleynta dhalinyarta waxaan kaga qayb qaadanayaa ciwaanka soo socda. ciwaankan barnaamijka kaga qayb qaadanaya waa su-aasha mudan inaynu isweydiino dhalinyaro. su-aashu waxayna leedahay dhalinyaro quusigu maynoo qalmaa. su-aasha haddaynu ka jawaabno mustaqbalkeenu siduu noqonayo ayayna tusaysaa. intaan su-aasha jawaabteeda u gudagelin haddaan ku horeeyo muhiimada dhalinyarta ay leedahay waqtiga dhalinyarnimadu. siaynu ka wada dheegsana waqtiga dhalinyarnimadu waa waqtiga ugu qaalisan cimrigeena gaaban ee ku gabaabsada 60 ilaa wixii ka sareeya, waana lagama maarmaan inaynu sida ugu fiican uga faa-iideysano. dhalinyaro haddaynu eegno xagga diinteenu aad ayay noola hadashay dhalinyaro, wayna waadisay. ilaahay qur-aankiisa uu inoogu sheegay dhalinyaro guuleysatay, waana laga maarmaan inaynu dhalinyarada ku dabadayano. dhalinyaro nabigeena calayi salatu wasalaam waa kiina lahaa xadiiskiisii uu ku sheegayay nasaranii ashabaab cindamaa khadalanii ashuyuukh. dhalinyaro saynu wada ogsoonahay xadiiska nabigeena calayi salatu wasalaam inoogu sheegay waqtigii adkaa ee ka horimiday nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii garab galay waxay ahaayeen dhalinyaro. dadkii garab galay waxay ahaayeen dhalinyartu xoogoogii oo dhan nabigeena calayhi salaatu wasalaam way ku garab galeen. xaggay ka hor imaadeen dadkii shuyuuqda ahaa ee cuqaasha ahaa ee bulshada hogaaminaya oo dhanna nabigeena ay kaga hor yimaadeen. dhalinyaro waxaa laga maarmaan ah inaynu waqtiga dhalinyarnimada ka faa-iideysano. dhalinyarnimada haddaan tusaale usoo qaato, dhalinyarnimadu waa sida badmaaxaa badweynta gooshaya. waqtiga badu ay kacsan tahay waxaa ka hor imaada hirar, waxaa ka hor imaada dabaylo xoogan. waxaasoo dhan badmaaxuhu inuu ka gudbo ayuu ku dadaalayaa, uu naftiisa iyo markabkaba uu badbaadiyo, hadafkii ou lahaana au gaadho. inaguna waxay naga hor imaadaa taxadiyo aada u xoogan oo sida hirarka oo kale ah, waana laga maarmaan inaynu kaga gudubno xoogga dhalinyarnimada. dhalinyaro noloshan intaynu noolnahay ilaahay dembi waynu ka galaynaa, bulshadeena dembi waynu ka galaynaa, waynu qoldamaynaa. laakiin inaynu quusano uma qalano. dhalinyaro ilaahay qur-aankiisa oo inoogu sheegayaa qaala waman yaqnadu min raxmati rabbi ila alqowmu daaluun. dhalinyaro waxaan aaminsanahay anigu inuu quusigu inoo qalmin, waayo waxaynu nahay xooga ummadda. dhalinyaro quusigu inooma qalmo. noloshan sunnaheegana laba mid ayuumaynu la kulmaynaa, inaynu noqono qof guuleysta iyo qof guuldareysta. labadaa mid inaynu la kulanaana waa laga maarmaan. guuldaradana qofna ma jeclo, laakiin waxaa keenaysa quusiga ayaa keenaya. inaynu guuleysanaana, si aynu u guuleysano waxaa laga maarmaan ah inaynu la imano sabirku waa furaha guusha, waana laga maarmaan dhalinyaro inaynu la imano. inaynu ku sabirno daacadda ilaahay, inaynu ka sabirno macsida ilaahay. daacadda ilaahay waxbarashada aan wadno inaynu ka sabirno, macsida ilaahay inaynu ka sabirnaana waxaa inooga baahan yahay inaynu shahwaadkeena ka sabirno, inaynu ka sabirno dunuubteena aynu galayno, inaynu ka sabirno ayaa lainooga baahan yahay. dhalinyaro inaynu nafteena baranaa waa laga maarmaan. nafteena haddaynu barano waxaynu tusaysaa dariiqa toosan, waxay nagu hagaysaa waxaan ku fiican nahay, waxaynu kaantaroolaynaa caadifadaheena. waxyaabahaasoo dhan ayay nafteedu inaynu baranaayay ay naga saacideysaa. dhalinyaro waxaa kaloo laga maarmaan ah si aynu u guuleysano inaynu waqtigeena maareyno. waqtigeenu waa maalmaheena, inaan maareynaano waa laga maarmaan. waa kii abwaankii weynaa aadan axmed afqalo gabaygiisii markuu dhalinyarta waaninayay uu ku lahaa israafkiiyo fadhigu waa waxaad eegaysaane axmaqnimo waqtigii kaaga tegay oohinkugu reebiye ayaantii ku dhaaftaa oo waxaa la eegayne axadkii kaslaanahay abidkiisa boole. gabaygaas waynu dareemaynaa muhiimada uu leeyahay dhalinyarnimada marka loo eego, waana laga maarmaan inaynu waqtiga dhalinyarnimada dhalinyaro ka faa-iideysano.
ilahaas kooban ayaan kaga qeyb qaadanayaa barnaamijka hogga tusaaleynta dhalinyarta. Dhalinyaro had iyo jeer waxa inaynu inagu suwaanino aynu waqtigan aynu ku jirno sidaynu uga qaadan lahayn uga faa'iideysan lahayn inaynu ka fikirno aynu ku dadaalno ayaa laga maarmaan ah. insha allah barnaamijka xiga. assalaamu calaykum.